Ninkan kaligiis ayuu guriga ku noolaan jiray, laakiin maanta markii uu albaabka ka soo galay, waxa uu maqlay hadal. Geesaha ayuu fiiriyey, balse wax waa uu arki waayey. Waxa uu go'aansaday in uu iska seexdo, oo waxa uu niyeystay in aan cidina meesha joogin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena, soo dhawaada walaalayaal. Sheeko cajiib ah taasoo aan inaba caadi ahayn ayaan idin wadaa maanta. Qisadeena maanta waxay ku dhacday ninkan waxa uu ahaa nin kaligiis guri degan. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu gurigiisa banaanka ka aaday. Dan ayuu lahaa, dantiisi markii uu soo bogtay waxa uu ku soo noqday gurigiisa. Laakiin gurigii markii uu albaabka ka soo galay ayaa wuxuu maqlay cod dad hadlaya. Gudihii ayuu u soo galay, meelihii ayuu fiiriyey, wax waa uu arki waayey. Firaashkiisii ayuu iska imaaday, waxa uuna go'aansaday in uu iska dhigo qof hurdaayo oo kale si uu u arko haddii ay dad meesha joogaan iyo haddii kale. Markii uu ninkan firaashkiisa imaaday, indhaha ayuu isku qabtay, laakiin waa uu soo jeedaa. Waxa agtiisa soo fadhiisatay 3 nin. Meeshii uu jiif agtiisa waxaa soo fadhiisatay 3 nin. Waxa ay wateen raashin iyo qudaar iyo cunto bisil intaba. Mid ayaa wuxuu yiri, raashinkan waxaan ka soo qaaday hebel oo ma uusan dhihin bismillaah. Mid kale ayaa wuxuu yiri, burkan waxaan ka soo qaaday hebel oo ma uusan dhihin bismillaah. Midkii kale ayaa wuxuu yiri, cuntadanna waxaan ka soo qaatay hebel oo ma uusan dhihin bismillaah markii uu meel dhigay. Ninkan wuxuu iska dhigayaa qof jiifo, laakiin ma jiifo. 3 nin markii ay saas dhaheen ayaa mid ka mid ah wuxuu yiri, annaga xeerkeena kuma jirno qof inaan agtiisa wax ku cunno, ee ninkan aan soo kicinno waxa nala cunee. Mid kale ayaa wuxuu yiri, bal ka waran hadduu bismillaah dhaho, waayo hadduu bismillaahi dhaho annaga meeshaan waan ku baaba'eenaa oo ninkan kaligiis ayaa wax cunayo. Mid kale ayaa soo booday ee saddexaad waxa uu yiri, haddii uu bismillaah dhihi lahaa gurigiisa maana soo galeen. Waxay go'aansadeen ninkan in ay kiciyaan si uu cuntada ula cuno. Waxay u maleeyaan ninka inuu jiifo, laakiin ninkan sirtooda idil waa u maqlaaya. Ninkii ayay kiciyeen, markii uu soo kacay waxa ay ka codsadeen cuntada inuu la cuno. Ninkii waa uu ka ogolaaday. Waxa uu yiri bismillaah. Markii uu bismillaah yiri, 3 nin waa ay qarsameen. Cuntadiisii ayuu ka dhargay, wixii soo harayna dadkii lahaa oo ay ayaga magacyadooda sheegeen ayuu u celiyey. Waxa uu yiri, hoo adiga ayaa laga soo qaaday, bismillaah maada dhihin, hadda kadib bismillaahi dhaho waxaaga see kuuga ilaashamaan. Mid walba wixii uu lahaa ayuu u geeyey. Bismillaah waa badbaadada bini'aadamka. Ku dadaal mar walba inaad dhahdo bismillaah markii aad wax cunayso, markii aad wax bilaabayso intaba, si ay kuugu barakoobaan aadna kaga magangasho shaydaamaha iyo wax la midka ah. Fadlan haddii aad halkan soo gaartay, ku salli xabiibkeena Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.